gudoomiye xildhibaano sharafta leh ee dulqaatay ilaa xilligan jooga saxaafadda howlwadeenada dhammaan waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib mudana gudoomiye mudanayaasha sharafta badan maanta dhan waxaan ka hadlaynay waxay ahayd waxna wada taabanayay na xanuujinayay qof kasta oo ka hadlayna waa toosiyey oo siduu u fikirayay ama siduu u arkaayo ka hadlay. waxaan rabaa amni markii laga hadlaayo in ay tahay naf bini aadan ah ama maal uu qof ku soo daalay ama nafti bini aadamka ahaaba in meesha lagu weynaayo. marka waxa aan rabna waxay tahay dhinac kasta haddii laga fiiriyo war naftaas ha la badbaadiyo si allaale sidii lagu badbaadin karana ha lagu badbaadiyo. waxaan rabnaa annaga waxaan nahay mas-uuliyiintii dalka horta mas-uuliyad amnigu waxaa la yidhi waa mas-uuliyad wadareed dadka qaarkiis sida ay qabaan mas-uuliyad wadareed waxay u tahay dadka mas-uuliyiinta ah ma ahane shacabka ma u aha. shacabka qaybtoodii way qaateen xaqiiqatan waayo waxaan ognahay ciidanka maalin kasta le-anaya ama maalin kasta markii qaraxyadu dhacaan soo boodaya waxaa la yidhi markii la tilmaamayo waa ciidan qabiil ciidan dawlad ma noqon karaan. miinis waxay la mid tahay ciidankaas hadday qabiil yihiin shacabkii magaalada muqdisho deganaa wiilashoodii waaye wiilashoodiiyay bixiyeen shacabka naftoodiiyay hureen waxay kaloo bixiyeen canshuuray bixiyeen. hooyadii guriga deganayd gurigeediia canshuur laga qaaday oo laga yaabay inaysan dab ka shidanin laga yaabay ilmaheeda inay iskuulka ka baxsan weyse ay soo tuugsato ama qof walaal ah ay weydiisato lacagtii canshuurka laga rabay si ay u gudato waajibaadkii saarnaa oo amniga ka saarnaa hooyooyinka Soomaaliyeed. markaasaa waxaa loogu bedelay dhibaatadaas dhacayso in la yiraahdo adigayba mas-uuliyaddii ku saaran tahay. mas-uuliyadeedii way gudatay hooyada mas-uuliyaddu dhankeenay soo jirtaahe annagu aan isweydiino hooyadaas Soomaaliyeed wiilkeedii subaxii markuu ka baxo waa sidii saakay ku dhacday iyo si la mid ahaa ku dhacayso waxaa ku dhacayso hooyadii isbitaalka ay aadi lahayd inay jid u mari weyso. bilaahi calaykum ilaahay aan ka cabsanno shacabkan maalin kasta aan isku tuurtuurayno sidii dhaga hadalkii inaan meeshaan u istaagno oon ku loolamayno oo aan dhahayno mucaaradka iyo waxba idiin sheegin mucaaradka idinla hadlaaye wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaysan naga saarayn maalinta yowmal qiyaamo. waana la weydiinayaa lacagtaas aan hooyadaas ka qaadnay mas-uuliyiinta qaarkood ilmahooda oo Yurub iyo Aasiya iyo Ameerika iyo Australia ku nool ay u dirsadaan ma lacagtaasaa xalaal ah ma lacagtaasaa xalaal noqonayso. waana la weydiin maalinta yowmal qiyaamo. waxa la isweydiiyo waxaa waaye maalka meesha uu ka yimid iyo meesha lagu bixinaayo wuxuu ka yimid hooyadaas ooynaysa oo dhibaataysan uu ka yimid. ma jiro maanta inteena baarlamaan ku jirto ama dawlad ku jirto madaxweynahaba ha u weynaadeen ilaa iyo prime ministerka ilaa iyo wasiirada 10% ma dhama inta ilmahoodu ay inta ku nool yihiin. hala xisaabiyo waa joogaan hay-ado ku gaar leh oo xisaabiya. waxaa jira niman mas-uuliyiin ah hoteello degan lacagta hooyadaas laga qaaday cunugiisa oo iskuul dhigta oo Maraykan iskuul ka dhigta u dirsada maba ogaba. marka canugan kale laga qaaday waxa ku dhacaya ma ogo waa runtiis waa loogu cudur daarayaa xildhibaankaas intuu fadhiyaa ama wasiirkaas intuu fadhiyaa waayo saaka markuu gurigiisa ka soo baxayo cunugiisuu la hadlay baaba ma soo kacday haa haye iskuulkii ma tagtay hooyo iskuulkii ma ku geysay meel labadahuu joogaa. intay ka timid lacagtaas ma la isweydiinin aakhira waa nala weydiinayaa. hadday shacabkana weydiin waayaan waxaa na weydiinaayo maalin aan annaga waxba isku tari karin. waa maalin oo la dhahaayo maa laa yanfacu maalun walaa banuun ayna anfacaynin wiilasha aan ku faanaynin iyo gabdhaha aan ku faanaynin. waxaan rabaa mas-uuliyadda amniga inaan uga dhiirigeliyo ciidanka amniga xaqiiqatan doorkoodu way qaateen ayagoo baahan oo guryaha laga bixinaayo oo ilmahoodii aan dhakhtar geysan karin oo islaamahoodu aan waxba siisan karin ay amnigeena sugaan maalin iyo habeen. hadda intaan ku jirnaa bannaankay taagan yihiin ammaanay mudan yihiin dhiirigelinay mudan yihiin waxay mudan yihiin in taalo loo dhiso 20 sano iyo 30 sano oo dawladayna ee marna daciif ahayd marna dawlad ahayna jidka noo taagnaayeen. waxaan rabaa inaan halkan ka xuso xildhibaanada ugu horeysay oo tiri shacabka Soomaaliyeed ama shacabka reer Muqdisho 4 xaafadood ay ahayd amnigana way sugnaan jiray saan ma ahaan jirin waa xaqiiq
أنا مقدشة كل شيء ما كدح بحين وحبان كدح برتي أنا جو أرضي يضو دبعتها أسكجرته وحي لما عنطها مركة دولتي مركة تميد أمني اللوايا لي ما هي أتمد وصح شعب كشري دولة مجرين أنت مسؤول استأهالي ما أنت أردهنه شعب وحرقني ما هي مسؤول استأهاله لعدتي اللي أديك اسكو إلالية حافظها عيدا كسميست أردهنه هذا يسنساس أهين حلبان هذا قاركود ويقرين إني مقالة مقدشو حافظ أهين أمني قودنا أي سقنا دكي مقدشو إلى جوغينا وإلى قرايانه دولة داد مسؤولية داس قادة دولة مسؤولية ديلها قدته دولة مركان لا ياي واحد لبان ووزير ومدحويني وانا وضع سارنته waxaan rabaa inaan ka hadla arinta oo amniga oo la leeyahay meediyaha ma laga hadli karo iyo ama wasiirada saaxiibadeen ah wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga labadaba waa laba wasiir oo laba xildhibaan ah waa saaxiibadeen ma xuma ma qaldana dadka kama xuma laakiin mas'uuliyad ay qaadeen xaqirtaan mas'uuliyadaas aniga hal jeer la idaariyay asagana laba jeer la daariyay maxaa loo daariyay labada jeer maxaa dhaartii hore loogu day waayay waxay ku tusaysaa inuu mas'uuliyad labaad qaaday mas'uuliyad annaga naga dheer inuu qaaday ku tusay mas'uuliyadaas naga dheer uu qaaday waxaan rabnaa asagoo naga xumaanin annagoo asaga ku xumaynayni inuu saaxiib fiican keensado shaqaale fiican keensado la taliyo fiican keensado oo khibrad iyo ehel u ah waatu ilaahay yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxaan inaadan aqoonin ceeb ma aha aniga arday jaamacad ka soo baxa ahay business administration bartay saaka wasiirka gaashaandhigga hadii la iga dhigo ma aqaani laakiin ma qaban kari madahay waa siyaasad waxaan keensanayaa rag khubaro ah oo cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ehel u ah arintan garbahaygan soo fariisinaa waxaan leeyahay wax kasta oo ku saabsan ii soo qora ii keena waxaas haday saxan yihiin markaasaan ku dhaqaayaa waxa xun marka wasiirka saaxiibka ah oo ducaale iyo xasan ma ahane qaabkay u shaqaynayaana qaldan ee istiraatiijiye saxan iyo saaxiibo fiican iyo yani la taliyayaal fiican ha samaystaan waxaan ognahay wasaaradaha shaqaalaha ku filan in ay tahay $700 shaqaalaha wasaaradda oo ay dawladda ansixisay waxaa jira la taliyayaal ay dawlado kale islaameed lacag ku bixiyaan dawlad islaameed waxay ku dhahdeen war la taliyo fiican samayso san lacag ku siiyo khibradiisa iyo aqoontiisa hadduu wadan kala jiro ka keenso 10 kun aan siina 7 kun aan siina 5 kun aan siina ina adeerkaaho guriga jooga soo wadatay oo adiga kula mid ah adiga yani ehel ugu ahayn oo asna ehel ugu ahayn lacagti 7 kun oo lagu bixin lahaa ninkii khabiirka lagu bixin lahaa asi ku bixisay maxaa faa'iido waa dugdug meeshaada joog taasaa keentay xanuunkana wada saartay taasaa keentay inaan isku wada ciidino mideeda kale waxaa inta laga wada qiray inay dhibaato jirto dhibaatada jirto waa sax dadku isku mid ilaahay kama dhigin dadna waa ku dhiiran karaan waa sheegi karaan waxaana qaldanay dhihi karaan dadka qaarkiisna way ibsanayaan oo waxaa meesha ka soo baxayo xadiiska rasuulka oo ahaa man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان واربنا قلبك يعني هاي كدبته لكن مررك قاركود إن ما شاء الله سو استاغ الشعب كيا لسي داوعين داوع مورال يا لسي جيسني أنك إذا هلينا هذا هل كريم أنك إذا هلينا هذا وحيابك لو إزديدا إلى إنسان هذا وحيرين إنسان أنك إذا هلينا لكن بالله عليكم شعب كاس إباتيسن هو يدا جدك كل رئيسه وحنا قلدين مثلا ما قلدنا يوصل شك نجدلي لكن سيدا أصحينا أن إسكور يسنو أن إسهون مانو أن اللي بنجاكو ودايري دعم الجرهاس الله دقاه مسؤولية دعوان قادناه أن وضع قبلنا سيدا وضع قادنها هذا حل الإبان كان أوفيس سايتيسا هسما يستو وزير كان شقاد الله دري يوحي الإبان نمي وزير نمي كمر مرسيوني شقادها حق بصدها دوسا حتى أقول لهي دد أقول لهي حق ينصدو marka waxaan ku talinayaa in arintaas mas'uuliyadaas sida uu wada qaadna ay ahaato laakiin shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Muqdisho aan loo gafin aan loogu darin isbitaal la'aanta waxbarasho la'aanta bir inaan loogu darin ciidanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabkaas waa ku aad ilaalinaysiin yaani li adeegsanin yaani lidiin argagixiso waayo iska ilaaliya shacabka dhan argagixiso ma dawladda Soomaaliyeed iyo dadka mas'uuliyadda u qaaday waxa la rabaa ardayda iskuulka joogta inay ayaga intelligence ku dhex darsadaan ardayda
hooyada ganacsadanaysa iyagaa la rabaa inay intelligence ku dhex darsadaan shacabku say mas-uuliyadda u qaadayaan wiil arday amaa soo sheegaayo nin shabaab oo wax qarxinaayo marka waxaan rabaa walaalayaalo mas-uuliyaddan wayna wada saaran tahay wallaahi billaahi qiyaamana waa nala weydiinayaa